Sidee looga hortagaa faafidda caabuqa COVID-19 oo ah coronavirus? COVID-19 waxaa sababa waa virus faafa oo loo yaqaano coronavirus. Wuxuu markii ugu horreeyay bini'aadamka uu ku dhacay hadeertaan. Cudurkan wuxuu iskaga gudbaa qofka qof ayuu iskaga gudbaa. Inta badan wuxuu ku gudbaa qoyaan ka soo baxaya qofka. Marka qof cudurkan hayo uu hadlo ama qufaco ama uu hindhiso, qoyaankan markaa waxa uu geli karaa afka ama sanka marka dadka u dhow qofkaas. Qoyaankan markaa ma ku safri karaan hawada, aad bay u culus yihiin. Marka ugu badnaan waxa ay qoyaankan ku degaan in ka fog 1 mitir qofka markaa hadlayo. Tani waa sababta ugu weyn ee dadka aadka iskugu dhow ay u kala qaadayaan cudurkan. Ilaa hadda lama hubo inta uu ku noolaan karo fayraskan korka shay. Marka aad ayay u fiican tahay in si joogto ah loo nadiifiyo meel waliba, especially marka la dhaho meelaha dadka cudurkan qaba ay joogaan. Gacmuhu waxa ay taabtaan meelaha aad u badan oo laga yaabo inuu cudurkan u yaalo fayraskiisa. Sidaa daraadeed waxaa habboon inaad ka fogaato inaad taabato indhahaaga, sankaaga, afkaaga, maadaama gacmuhu ay ka soo qaadi karaan cudurkan meel horey u yaalo fayraskan, kadibna adiga ay kusoo gudbin karaan. Marka aad qufacayso ama aad hindhisayso, ku dabool sankaaga adiga oo suxulkaaga soo laabaya, ama isticmaal tiish ama maro markaa la iska tuuri karo. Habka ugu muhiimsan ee looga hortago faafidda cudurkan coronavirus waa in aad dhaqdo gacmahaaga si joogto ah adiga oo ku dhaqaayo chemicals alcohol based ah ama saabuun iyo biyo. Midaan waxay ka dilaysaa fayraska gacmahaaga haddii uu gacmahaaga ku yaalay. Ahow mid caafimaad qaba oo ka hortag faafidda cudurka coronavirus oo loo yaqaano COVID-19.